aniga anoo iska jooga oo dhaxdiisa ku jiro ilmuhuna igu jiraan baa albaabka la ii soo garaacay naago iyo niman socdaa ii soo garaacay albaabka markay ii soo garaaceen albaabka waxay yiraahdeen gurigaanaan soo gadanay nin carab aan ka soo gadanay gurigayga aniga lahaan iri wuxuu ku yaalaa degmada Cabdicasiis gaar ahaan xaafadda Liido ku yaalaa anaga waxaan ka soo gadanay nin عربة ولا يرهدو عبد الرزاق حاجي علي صالح وحن كو قدناي صفة شرعية لحدن يكودي وصوب حي إلا الآن وحوها شرعي صفة شرعية وكو سعودة أنا وحن قدنا لبدي كنت طبعاً أفرتي بيش سجالة دان قدنا نقول استوحى ليرهدا حاشي بالحن ما أنتو كودا وتجنا وحو نيري waxaan ka kireystay gurigan 93 niman Mooriyaan ah oo hawiyahan ka kireystay ayagina way leedeen dabadeedna wax raadsa maanta ka hor ma aanan arag hadii aan arki lahaan waan kala macaamili lahaa maalintii hore saasoo nugu yiri markaan iri gurigayga aniga la waa tageen degmaday markay tageen ba inta lacag bixiyeen baa weer la igu soo qaaday degmada weerkii ugu bilowday iyo saldhiga Cabdicasiis yaa igu bilaabay mataqaana weerar haddana dib waxa ii soo weeraray iyaga haddana waxa ii soo weeraray haddana kuwa mugaab soo diray haddana dib ii soo weeraray tii ugu dambeysay waxay ahayd dawladda oo dhan baashirtay waxa la yiri ninkii dacweynaya gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa wuxuu yiri mataqaana ikin ilkaanaf ninkii dacweynayo dacwo qaba gurigiisa asaga iskale maxkamadda ha tago oo dacwaha geysto maxkamadda madaniga oo gobolka Banaadir halka ha tago kadib markaan u nimid oo maxay hayday gudoomiyihii taliyay saldhiga iyo ay soo raaceen kii bartamaha qoray uu noo qaatay booliskii ayay amnigiina u soo gudbisay booliskii markii uu guriga tagay oo uu gargaraacay ninkan wuxuu ku diyaarsaday ciidamo asagoo garaadana leh ra'iisul wasaarahana garab ka haysto abaanduulkana garab ka haysto waxa uu diyaarsaday ciidamo koofi gaduud ah booliskii markay gargaraaceen xabada lagu bilaabay waa la isxabadeeyay waa lagu dhaawacmay waa lagu dhintay intaas markii la suubiyay dawladda soo faragelisay madaxtooye ilaa meel walba laga qayliyay booliskii waxa la yiri dib u laabtay yalba jooguriga aniga inaan leeyahay inaan dhistay documentiski waan haysaa ma garatay tii maxkamadda saran haysaa tii maxkamadda hoosaan wax ila hadlayo ma laha waa xoog iyo awood weey ma garatay meel alla meela ilmihii iyo dadkii iyo ku sheega ma qaano aniga xalay waxaan ku hooyday cid islaameed darbigeed yaan seexday anoo leeyahay oo ka array askar inay qabsato oo la xiro godka jil oo liigu xiro ninkay xiraya waa laba xidig la weey anna korneel xoogga dalka Soomaaliya wax sharci oo igu xirayaan ma jiro waa qabiil ma ahan dawladnimo ma waxa karo islaamnimo minna horta bal waxa gurigayga ugu haysto banaanka muungaab oo iga saaray waa inaan arkaa timid booliska dib u laabtay la yiri booliska markay dib u laabteen wuxuu suubiyay intaas asagoo suubiyay oo tuutihiisa qabo oo madaxtooye istaagay oo dambiile qaran ah oo anaga xabad nagu weeraray oo garaado noo sheegtay oo garab ka haysto madaxweynaha iyo abaanduulka oo garab ka haysto ayuu wuxuu suubiyay nagu weeraray oo hantideena rabaa af Soomaali iyo xoog inuu ku dhaco sababtu waa way haday ka wax ka qabtaan dibkaan u yimaadeen xaalay ilmahayga banaanka roob ugu da'ay male waxaan ku alla baaqano saalo dhan waxay rayneen niman BS aftub ah oo ilaa xiraal rabay alaabteeda ilaa hadda meel u darmaa ilmay naagteeda ilmaa ka dilmay gabadheeda ilmaa ka ayagoo dhiig ka socdaan baa askarta afduubta inta u yimaadeen anoo korneel ah oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo banaanka u turiyeen hayaan alaabteeda ma gartay waxa igu filan in sharciga la geeyo anigu taliyaan leeyahay taliyahayga loo tago leeyahay ninkan waxa lagu haystaa gurigaas ha ka soo jidbaxo waa ka jidbaxaya hadana waxaan sheegaynaa ninkii ahaa darawalkii Maxamed Siyaad Barre oo afkiisa ka sheegtay haddana ah darawalka ra'iisul wasaaraha in oo hantideena xoog ku dhaco oo shaati ku dhaco oo garaado ku dhaco oo loogu heeliyo oo tolkiisoo dhan ay ugu heeliyaan
wuxuu rabaa dowladda iyo adduunka iyo soomaalida inuu ka dhaadhacsiiyo inuu xoolahaas isaga leeyahay wax dukumenti oo haysta ma lahan annagaa dukumentigiisa haysano gabdho soomaaliyeed oo ganacsato ahaan nahay hay-ad walba annagay noo soo xukuntay dowladda waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha ka codsanaynaa oo duqa magaalada aan ka codsanaynaa in dhulkeena nalaku wareejiyo duqa magaaladana waa uu naga jiiftay boongaab waa uu naga jiiftay intaasoo guryuu bixiyey intaasoo daaroodoo dudumiyey intaasoo dadoo bannaanka alaabtooda dhigay ninkaana wax waa nooga qaban waaye maxkamadda gobolka Banaadir meeshaan ka sugayay waxaa ii yimi 9 baabuur oo teknika ah yaa guriga igu soo weerartay ilaa maalintii ilaa shalay waxaa la igu hayay weerar waxaa igu hayay mungaab waa in sharciga la igeeyaa waa in dowladda oo dhan ay aragtaa gurigaygii anigu aan lahaa oo aan ku noolaa intaas sano hadda ilmahaygi halba meelba jiraa waxaan u baaqayaa adduun weynaha ummadda nabadda jecel wixii caawiyo ilmihii in la ii raadiyo in wax la ii qabto haddana waxaan sheegaynaa ninkii ahayd darawalkii maxamed siyaad barre oo afkiisa ka sheegtay haddana ah darawalka ra-iisul wasaaraha in oo hantideenna xoog ku dhaco oo shaati ku dhaco oo garaado ku dhaco oo loogu hiiliyo oo tolkiisoo dhan ay ugu hiiliyaan oo wuxuu rabaa dowladda iyo adduunka iyo soomaalida inuu ka dhaadhacsiiyo inuu xoolahaas isaga leeyahay wax dukumenti oo haysta ma lahan annagaa dukumentigiisa haysano gabdho soomaaliyeed oo ganacsato ahaan nahay hay-ad walba annagay noo soo xukuntay dowladda waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha ka codsanaynaa oo duqa magaalada aan ka codsanaynaa in dhulkeena nalaku wareejiyo duqa magaaladana waa uu naga jiiftay boongaab waa uu naga jiiftay intaasoo guryuu bixiyey intaasoo daaroodoo dudumiyey intaasoo dadoo bannaanka alaabtooda dhigay ninkaana wax waa nooga qaban waaye